haatana aynu xagga dagaalka Gaza qoraansanno duqeyn culus iyo sidoo kale weerar ba'an ayaa maanta waxay ka socdaan marinka Gaza halkaasi oo ciidamada Israa'iil ka wadaan mid ka mid ah duulaamadii ugu weynaa tan iyo bilowgii dagaalka habeennimadii xalay oo dhan ilaa iyo saaka duqeymo aan kala joogsi lahayn oo loo adeegsanayo bambaanooyin iyo gantaalo ayaa Israa'iil waxay ku haysaa kana wadaa bartamaha jiidaha Gaza waxaa la soo warinayaa dhimasho iyo dhaawac fara badan oo ka dhashay weeraradaasi ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxay adeegsanayaan roboodyo ay ku qarxinayaan guryaha ku yaala koonfurta Gaza gaar ahaan dhanka Khan Yunis dhinaca kalena guutooyinka Al-Qassam oo ah garabka military ee ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay inay fuliyeen weerar isku dhafan oo ka dhan ah ciidamada Israa'iil kuwaasi oo ku sugnaa koonfurta xaafadda Al-Saytuun ee koonfurta magaalada Gaza iyagoo adeegsanaya hoobiye iyo qoryaha darandooriga u dhaca xilli ciidamada duulaanka ah ay isu diyaarinayeen inay qabsadaan magaalada guud ahaanteed Al-Qassam ayaa sharaxay in intii lagu guda jiray weerarka ay beegsadeen laba gaari oo ciidanka qaadana askarta iyaga oo ku qarxinayay laba miilo oo lagu dhex aasay ee qaybta hore ee gaariga kadibna gantaalka Al-Yaasiin 105 ayay ku garaaceen gaariga ciidan oo nuuciisu yahay Nimar Al-Qassam ayaa waxay xaqiijisay in dagaalyahanadooda ay ku rideen madaafiic laba gaari oo ay askarta Israa'iil ay go'doonsan ay isticmaalayeen xilli ay ka soo baxayeen goobtii ay weerarka ka fuliyeen ee xaafadda Al-Saytuun Al-Qassam waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay xaqiijiyeen in askarta qaarna la dilay kuwa kalena la dhaawacay intii lagu guda jiray weerarkaasi ka dhacay xaafadda Al-Saytuun ee koonfurta magaalada Gaza Al-Qassam waxay ku dhawaaqday inay beegsadeen taangiga Markava iyagoo adeegsanaya hoobiye Al-Yaasiin 105 ah koonfurta ee xaafadda Al-Saytuun ay ku beegsadeen sidoo kalena waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay beegsadeen taangiga Markava 4 oo ah iyo sidoo kale cagaf military oo nuuca D9 loo yaqaan ah oo ay ku dhufteen laba hoobiye kuna beegsadeen koonfurta xaafadda Al-Saytuun ee magaalada Gaza dhanka kalena xafiiska wasiirka difaaca Israa'iil ayaa shaaciyay in Israel Katz uu kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada iyo Zame iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka intii lagu guda jiray kulankaasina lagu soo bandhigay mabaadi'da qorshaha la xiriira fulinta go'aanada golaha wasiirada ee lagu doonayo in lagu qabsado magaalada Gaza guud ahaanteeda iyada oo la qorsheynayo in la ansixiyo Axadda soo aadan xafiisku waxa uu bayaan ku sheegay in Katz uu ku celiyay go'aanka Israa'iil ee ah in la jabiyo Xamaasta Gaza in la soo sii daayo dhammaan maxaabiista iyo laga shaqeeyo sida loo soo afjari karo dagaalkan sidoo kale wargeyska Maarif ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay soo diyaarinayaan howlgallo ay ka fuliyaan magaalada Gaza dhamaadka bisha Sebtembar wargeysku waxa uu sheegay in horumarka magaalada Gaza uu noqon doono mid gaabis ah oo socon doono ugu yaraan dhowr bilood waxaana uu soo xigtay ilo military oo sheegay in jadwalka ciidamada uu ka hooseeyo waxa ay filayeen hogaamiyaasha siyaasadda isla markaana hogaamiyaasha siyaasadda ay ku cadaadinayaan ciidanka inay si dhaqso ah oo xoog badan u dhaqaaqaan iyagoo adeegsanaya madaafiic culus iyo sidoo kale ciidamo tiro badan oo gudaha magaalada Gaza ku sugan wargeysku waxa uu soo xigtay in qiyaasta ciidamada difaaca Israa'iil ee IDF magacooda loo yaqaano kuwaasi oo sheegaya in kumanaan ciidamo kayd ah ay heli doonaan ama amar degdeg ah maalmaha soo socda ay heli doonaan geesta kalena gudoomiyaha aqalka Knessetka ee Israa'iil ayaa ku andacooday in haddii la doonayo in la dhiso dowlad Falastiin ay leedahay laga dhiso London iyo Paris balse aan lagu aasaasi karin dhulka Falastiiniyiinta hadalkani ayaa lagu sheegay warqad uu u diray madaxweynaha Faransiiska iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Britain isagoo ku adkaystay in haddii la aqoonsado dowlad Falastiini ah ay taasi tahay guul weyn oo Xamaas la siiyo ama Xamaas ay noqon doonto guul taariikhi ah waa tahay war kale oo arrimaha Falastiiniyiinta la xiriira haddii aynu qoraansano qareenka u dooda siyaasiga weyn ee Falastiiniga ah ee maxbuuska ah ee Marwan Barghouti ayaa ku baaqay in la siiyo damaanad caalami ah oo ka hortagaysa in macmiilkiisa la dilo ama la qaarijiyo qareenka ayaa sheegay in Marwan looga hanjabay dil isla markaana dunida laga rabo inay hubiso inuusan noqon dhibane dil qorsheysan ee la kulma waxa uu ku eedeeyay ciidamada Israa'iil inay galeen qolka uu ku xiran yahay Barghouti xilli uu gacmaha u ka xirnaa ayna ku hanjabeen inay dili doonaan arrintaasi oo ku tilmaamay ficil faashiista ah qareenka
ayaa ku baaqay in Israa'iil ay bixiso damaanad cad oo lagu ilaalinayo nolosha Marwan Barquuti. muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arkay wasiirka xagjirka ah ee amniga Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo si cad ugu hanjabaya una handadaya Barquuti oo gacmaha ka xiran isla markaana ay ag taagan yihiin ciidamada booliis ah. waa tahay ugu dambeyntiina taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil ayaa si cad u sheegay in ciidankooda ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ah ee kadib falalkii ay ka fuliyeen Gaza ilaa haddana ay ka wadaan. taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil Dan Holotz ayaa sheegay in Tel Aviv ay ka geysatay Gaza falal ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah balse uu ka gaabsaday inuu ku tilmaamo dambiyo dagaal. Holotz waxa uu soo xigatay warbaahinta xukuumadda ayaa ka hadlay eedeymaha ku saabsan dambiyada dagaal ee ciidanka Israa'iil ka geystaan Gaza isaga oo yiri waxaan ka jeedsanay waxa halkaasi ka socda ugu horeyn saxaafadda. waxaana intaasi ku daray ma dhihi doono waa dambiyo dagaal mana samayn doono qarasho loo adeegsan karo maxkamadaha caalamiga ah balse waxa halkaasi ka socda waxa ka mid ah arrimo laga yaabo inay ka gudbaan xeerarka sharciga caalamiga ah. mas-uuliyiin hore oo siyaasadeed iyo kuwo military oo Israa'iiliyiin ah ayaa horey u qirtay inay ka geysteen dambiyo dagaal marinka Gaza kuwaasi oo ugu caansan yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert. 21 bishii November ee sanadkii 2024 maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca Yoav Gallant iyadoo uu lagu eedeeyay labaduba in dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha ay ka geysteen marinka Gaza. waa tahay ugu dambeyntiina taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil ayaa si cad u sheegay in ciidankooda ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ah ee kadib falalkii ay ka fuliyeen Gaza ilaa haddana ay ka wadaan. taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil Dan Holotz ayaa sheegay in Tel Aviv ay ka geysatay Gaza falal ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah balse uu ka gaabsaday inuu ku tilmaamo dambiyo dagaal. Holotz waxa uu soo xigatay warbaahinta xukuumadda ayaa ka hadlay eedeymaha ku saabsan dambiyada dagaal ee ciidanka Israa'iil ka geystaan Gaza isaga oo yiri waxaan ka jeedsanay waxa halkaasi ka socda ugu horeyn saxaafadda. waxaana intaasi ku daray ma dhihi doono waa dambiyo dagaal mana samayn doono qarasho loo adeegsan karo maxkamadaha caalamiga ah balse waxa halkaasi ka socda waxa ka mid ah arrimo laga yaabo inay ka gudbaan xeerarka sharciga caalamiga ah. mas-uuliyiin hore oo siyaasadeed iyo kuwo military oo Israa'iiliyiin ah ayaa horey u qirtay inay ka geysteen dambiyo dagaal marinka Gaza kuwaasi oo ugu caansan yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert. 21 bishii November ee sanadkii 2024 maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca Yoav Gallant iyadoo uu lagu eedeeyay labaduba in dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha ay ka geysteen marinka Gaza.